marka aan isku taagno waxa la yiraahdo ama marxuum kuugu ahaa waxa weeyaan halkaa waxaad ku arkaysaa waxa weeyaan waa qoligii ugu horreeyey oo hubka dhigista lagu sameynayay maalintaas waxay maalintii ugu adkay ee nin waliba diidanaa ee qoryaha ay wada sidanay waa stadiumka sidaa maanta aan u carabsanoo kalaan ugu carabsanay inay soo galaan yimaadaan taasay ahayd waa halgankii ugu ballaarnaa ee markii ugu horreysay aan la galay oo ah kaa laga midhadhiyey maanta aynu ku fadhino haddaan hubkaa la dhigin maalintaa may suurtoorin madaxaan ahaanaynayo waxaan ahaanaynaa kaasi qodobku ahaa qodobka labaad ee ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa uu maalinba maalinta ka dambaysa soo dhisayey halkan markuu khusbaynayay markaad arkayseen dacalkuhu markuu joogay waxaan idhi maalintaas waxay ahayd 6 subaxnimo ayaa layidhi hala dhaqaaqo cawl baa ahaa maayarka hargeysa madaxweynaha maraya meesha waa in la sii abaabulo xaajiyadana hargeyseen baanu keennay meesha ilaa 12 waxaynu u taagneen wax ahayd qadiyadda wadaninimada oo dadkeenu weli ka agsoonaa in aynu baranno oo wax ka reebana ilaahu baana waafajinayay annagu ma haysto ninkii inuu caadi ahaa dadka berberow ama dadka somaliland weli ilaahay uu ahaa sababta waxa weeyaan marka 2001 markuu ka hadlayo ee arkaysaan hadda sawirka waxay ahayd marka uu leeyahay toban guuradii baynu taaganahay toban guurada aan taaganahay tobanka kale la geli doono 20 guurada anigu ma joogo odhanaya dadku way qaadayne anigu ma joogo odhanaya wuu ku celcelinaya laakiin waxaan idiin dhigayaa wixii lagu mari lahaa oo ah dhab haddaad u qaadataan dhalinyarada ay gudgulin lagaa iyo kowda khudbadiisa qaadataan ma halaabaysaan meel walbuu ka hadlaya markaa ninkaas horta weli ilaahay u ahaaye muu ahayn qof caadiya taasi waa dhidibka taagan maanta nin walba dastuurku ku taana waxaan garanayaa maalintaa dastuurka baarhargeysa halkay tahay weydinka arkay markaasaa lagaa waa baalkii cigaal markaasaan joogsadaa oo adeer maalkii cigaal eega dastuur baa ku qorane war waa dastuur weydinka arkay dadkaa maalintaa xitaa qof kastoo shacbiyaan qabanina lahayn aan maxay adeer ka yar hadalyeed bal dadka ninimadu bal muhiimatuwatiga waa waxa rasmiga haddaba dhaxalkaa inooga tegey iyo waxaa inooga tegey waxa weeyaan inaynu si miyir qabna khudbadaa waxa ku jirta war shacabku inuu noqdo shacab feejigan oo taagan marka innaga waxay naga gudboon inaynu jaamacadda ku dhigno taariikhdeeda oon ku codsanayaa anigoo aad ugu mahad celinaya runtii berbera councilka berbera gobolka berbera siduu doorkan isu xulqaamay maxay dhalinyaradii jaamacaddii oo haddaanu hogaaminayn damay noqoteen maalinta waxa lagu yidhi waddanka walaalihayna Ethiopia waxaad gelaysaa arlidan waxa ku yaala sawirkii waxaa lagu oranaya ninkaas waa ninkii halkaas joogay taariikhdii baa ku qoran halkaasaad ka baxaysaa waxaa lagu fasiray lagu oranaya bastuuradkii hebel weeye halkan hebel baa fadhiistay odaygii noogu weynaa weeyaan bay oranayaan jabeedda ka ahaa marka waxaa loo tago wax caadiyaa laga baqanin in berbera taalaa tira birtaa loo daabaalkaa lagu samayno haka baqayna وسلامتي فاتحة الأمة واحد الهدى بيت الروح اللي يلا بقى يصدحنا معها تاديسون وأنا بدي أقولها تريو دوري وقفتي مرجو نقي هواياكم تبي لوريس رئيسا قدر على بي حريته تقدر سؤال iyo burburada dagaaladii gumaystahaas ayaa taariikhdaas ka soo bilaabmaysa mid waliba waxay leedahay culayskooda culayskeeday leedahay mid waliba waxay leedahay haddii aynu nahay ummad jirta adduunka ma aha inaynu qarino ama aynu ka warwareegno ummad waliba waxay leedahay leadership bay leedahay hoggaan bay leedahay taariikhda lagu xisaabay leedahay لكن الدول والبلاد هذا استقروا موضوع أيام ما بحث موضوع أيام ما بحث بعد كده يقول وليه بقى ده جرا أرجع وما واحد جاي بيت كده الدول يقول قبله محمد الله يقول هو الليدر في شمال
مرة مرة ليدر في سوماليلاند أيها ليدر في كان حريته أيها ليدر في نصر السعودية اللي هو حرية اللي هو معايا بلادين وها في معايا السنة يجي ويصير شغال السنة يجي شغال ليدر في اليوم كان واقف لكن أصحاب جيسي يوصل حبتينا وكمية دلال وكل شيء دلال يكون الهدية الرصاص ليس الوقت قال إنجليز كما قالوا أما حريتها النظام فالرجوع يجي قبلي وحكومتنا مرة حركة عتبرة علاج أنت الشرع الله أنت الشرع الله شهيدا المرة سنة كذب بينه وسبع سنة ولسنة كل أمر كاتك والله بلغ الله لكن الحمد لله وحكسور 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 تاريخ وياي أنت هيك علينا مسلمون ورسول waxaan noo qorshaysan adagoon cidda weji kaga doona cidda haddaan kaga doonin keliya u baahan inay ogolaadaan cidduu ka baxay ee ehelka u ahay inaanu goobtii uu ku lahaa berbera inaanu fens ku wareejino dabadeedna aanu garaacno dabadeedna aanu ras ku beerno dhirna ku beerno hantiina iyagu aanu yeeshaan anaguna aanu qurxino aanu ka dhigno meel ugu ay timaado oo isagana ku habsato sida ugu dhasaabadana kelideeda hadday iyagu soo ogolaadaan reerkaa reerkaas maxamed waayaan qoyskaa ugu geeriyooday hadday ogolaadaan laba arrimood mar dhulkeeda ugu badbaadaya oo berita wax magaaladaas ka degi doonta cid aan laga kicin karin baa degi doonta in lagu dilay iman doontaa maanta ugu banaanahay maamulkana walaa haya gacanta ku haya waxaan balan qaadaya inaan fens ku wareejiyo inaan ras ka dhigo dhulka ugu badan lagu beero si ciddo kastoo markaiyaala timaado waxaan kaloo aan diyaar u nahay haddii iyaga laga helo masaajiddaa imika la qabanqaabinaya cidda islaamnimo way joogtaa waxay doonayaan halada gutada in laga dhiso hadday ogolaadaan halkay ku ogolaadaan lagu taagi doona insha allahu tacaala marka kelmadaan doonayaa inaan idhaahdo faysal cabdiwaraabe 11 sannadood ee xuskiisii socday 11 sannadood baan ugu meel taagnaa nagamu maqnay faysal waa nin qiimo leh laakiin reer sheekh saxaaq ma yaqaanaan ninkooda qiimaha leh markuu sagaalay gartaan ay yidhaahdaan hebel sida maxay tahay maanta loogu ogaayo faysal qiimihiisa maanta garta yaanu idin cawlaan faysal dagaalkiisa feeyo waa ninkii aabihiisa khayriyada fulay taga yimid aabihii oo ciidagale raacay aabo calimahdi caydi ciyaal barkaaxiga ninkii aabihii ku yidhi buu ahaa ninkii bareeray ee salkii kasii haray buu ahaa kasoo haray ninkii bareeray ee xisbigii ugu horeeyey ee siyaasadeed somaliland kaga dhawaaqay buu ahaa iyadoo laga wada maagay waxaan idin leeyahay allaha daaye hala taageero hala caawiyo oo hala dhinac istaago faysal cali haddii ala yidhaahdo waxaan aada ugu mahadnaqayaa maayarka caasimada degmo ee gobolka saaxil degmada berbera cabdishakuur cidin abujahal waa sidii ku magacleeyahay waxaan ku ammaanayaa isagoo nin dhalinyaro ah xuskii aan ugu horreeyey ee uu magaalada berbera ka qabanqaabiyey wixii dhimana waxaanu leeyahay ku dar cabdishakuuro waxaan ku leeyahay nin dhalinyaro waa tahay xilka allaha kuu fududeeyo oo ha kugu asturo taalooyinka adeertaana badi magaalada baan leeyahay taasi kowa ka noqoto laakiin dhaqis iyo gelis iyo meel walba halaga dheero magaalada berbera sawirkii adeerka maxamed ibraahim cigaal adigoo ka soo jeeda qoys taariikh kule gobolka saaxil oo aabbaha la yaqaanay oo shiro dheere nacad kule shiro dheere ayaad ka soo jeedaa nin adagna waa tahay oo wadhiisna dhaanaa markaa waxaan leeyahay cidwaxo ku tilmaami mayso
guushii uu gaadhay maxamed ibraahim cigaal ee uu ka gaadhay somaliland farta haddii aanu saaxib gobolka ka soo jeedin may suurta gashee kolaba wixii somaliland oo qaawan buu yimi maxamed ibraahim cigaal somaliland oo qaawan guryuhu dhulka joogaan sawirka waxaan ugu soo qaadnay madaxtooyada waa markii uu galay xataa daahiye kuma xidhna sida madaxtooyada u qaawanay ee somaliland u qaawanay berberaha dhistay somaliland berberaha fadhiistii ciidanka samaysay haddii aan shilinkaa berber jirin ilaa maanta ilaa maalintii somaliland may hana qaadeen marka ugu horeysa magaalo berberi waxaa ahayd caasimad cid walba kulmisay marka daariheeda ku noqoto berbera gaaliya islaam cid ka maqlay way jiray huruud baa deganay carab baa deganay yuhuud baa deganay oo dahablayaa suuqa berbera ku haysan jirtay waxaan idin leeyahay dadka reer berberow dadka soo dhaweeya magaalo reer qoleyni ma camila isdhexgalka dadka ma camila isdhexgalka dadka soo dhaweeya say magaaladu u camilato iyo gobolkuba wuxuu ahaa maxamed ibraahim wuxuu ku fakeri jiray inay dekada berbera noqoto inay la tartato dekadaha caalamka ayuu ku habeyn jiray iyadoo aanay ku suurtagelin laakiin haddii alla yidhaahdo waynu gaari doonaa xilli ay la tartanto caawa halkan kuma arko cali xoorxoor uu maqan yahay cali xoorxoor oonu mahadnaqayaa shaqada uu ka qabtay xabaashi maxamed ibraahim aad iyo aad baa ugu mahadnaqaya tacsidii loo dhigay maxamed ibraahim cigaal goobkii kubadda maaha goobkii guusha sanadkan hargeysaa qaadatay markaynu isu qiimano labadii xafladooda dhigteen idinkuna kordhiya baan dilaystaa sanadka dambe u qaadataan haddii alla yidhaahdo waxaynu reer berberaha soo jeedinaynaa horta maxamed ibraahim cigaal waa ogeed inaanu wax maala ka dhimanin wax daara inaanu ka dhimanina waa ogeedeen maanta anigu guri karaa baan kaga jiraa ilaa maanta wax la yeeljeelo la sameeyey ma jirto waxaan saaray xoogga mar inaanu halkaa batalaay meeshii ugu dambeysay ee uu cagta saaro inaanu taalo uga dhisno taariikhdiisa inaan dhigno may noo suurtagelin laakiin haddana waa kusii dadaalaynaa halkaa xabaasha iminka xasan sheegayna waxaan jecelahay inaynu masaajid dhalka dhigno intaynu wada joogno waayo soomaalidu waxay ka fekeraan hebel waxbaa laga dhaxalayo dhul baa laga helayo waxoogaa lacaga waxaa ka qiimo badan taariikhdiisii meel loo dhigo ayaa ka qiimo badan olowr maran oo cidi bidhaansato ama la idhaahdo hebel iyo heblaaya ka dhaxlay waayo mauu lahayn hadda uka dhaxal maadaama aanu gaarana ku tigi library baanu si degdega ugu baahanay master mayer in berbera laga furo library cigaal library waayo sawirkaan aanu maalintaa la doortoono maahaane ma jirto somaliland oo dhan meelaad gasho taariikhdiisa ama ka daawato ama ku hirato marka waxaan ugu baahannahay in librarygii ugu horreeyey aynu ka samayno magaalada berbera si loogu xasuusto iyo goobtalxiisoolida goobtalxiisa lagu xasuusto labadaas waan idinka codsanaynaa